صحيحين وحاكم من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنه يلي أفر الرموت روحي دحدي سعي أهادان ولا جهله ويكوكل مان وحو أهانا يا منافق برحلا هل كم إذا روحي لجهلنا هل أرميه يخصاشي منافقين تكم إذا روحه كده حشرته ولا جهله محين أفرتا الرموت النبي صلى الله عليه وسلم روح مركو شيكين يو بين شيغا أفكيسة بين بو شيغا قارهان مركو شيكين يو مركي لآمنو وخيانا أمانة وخيانا تي إلهي كو آمني إيه تأمدو كو آمنتي hadduu ballan galo ballanta wuu jabiyaa ma ilaaliyo hadduu doodo oo la isqabsado oo cid isqabsadaana cadaaladdu ka tagaayo fujuur iyo xadgudub uu ku dhacaa waa xilliga ay adagta ruuxu inuu islaaliyo markii wax la isku qabsado dadku isqabsadaan inuu fujuurka iyo cadaalad darrada iyo iyo dambi sii galo ama xadgudub sameeyo أفرتاسي روحي كل ما النبي صلى الله عليه وسلم منافق نمدي سوى برحلاله بنانكو يالا مد كم إذا روحي لقاه لنا وحاكو تشيرت حبت منافق نما لبا حدي لقاه لنا طبعا لبا خصلا كتشيرت صدق حدي لقاه لنا صدق خصلا كتشيرت وهكذا خصاش منافقين تو روح مرنا ويكو يراني مرنا ويكو بدني طبعا mar waxay noqon kartaa tii diinta looga baxay marna waxay noqon kartaa tii ka sokaysay oo dambiga weyn ahayd xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu tilmaamayaa inay munaafiqiinta iyo nifaaqu kala duwan yahay waxa kale uu tilmaamayaa calaamado muuqdo oo lagu gartay inay jiraan summado waana midda quraanka kariimkii iyo xadiista nabigu aad u dul istaagtay oo laga hadlay واجي وحي قدقي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمنافقين تصابحين ومكة مدينة كصابحين إلا نحلقي مكة لتشوغي منافق متشرن مسلمين تا عدادس لقوهي إيا قال لليني إيا قال لقحيني إيا قال لدعي إيا قال محوها لعداديني حلقي مكة متشرن وح منافقة sidaas daradeed baa culimadu waxay leeyihiin muhaajiriintii Makka ka yimid ee Nabi Maxamed la soo hijrooday hal nin oo munaafiq kuma jirin nifaaqu wuxuu dhashay magaalada Madiina markii la yimid oo muslimiinta iyo dawladdu xoogaystay oo kuwii diinta nacbaa gabasho bilaabeen ayaa waxay bilaabeen inay iswaafajiyaan seed magaalada ugu noolaataan dhiiggiinna iyo naftiinnu u nabad gashaa oo dawladda nebiga uga nabad gashaan isla markaana mabdi'iina aad u ilaashataan gaalnimada ah inay qalbigana gaalnimo ku qarsadaan islaamnimona muujistaan sidaas daraaddeed lam yakun min almuhaajiriina walow munaafiq waaxid hal nin oo munaafiqa kuma jirin muhaajiriinta sidaas daraaddeed nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ina barayaa quraankuna ina barayaa waagaa waxaa la dhihi karay oo waxyigu dhihi karay oo quraanku dhihi karay hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq laakiin waxaan loo dhihin munaafiqiintu ilaa qiyaamadu ka imaanaysa way jiri doonaan maalinka haddii hebel iyo hebel la dhihi lahaana way dhiman lahaayeen laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu bedelay sifaad iyo tilmaamo ilaa qiyaamada aan ku garanno yaa munaafiqa weligood xilliga yimaadaanba miisaankaasaan haynaa marka quraanku sheegay sunnada nabigu sheegtay sallallahu alayhi wasallam waxa laga maarmaana sida marka la yiraahdo munaafiqnimada halis way ruuxu inuu ku dhaco ama isagoo isog ama isagoo isogeyn tawayn haduusan ku dhicina tayarta inuu ku dhaco waa halis buu ugu jiraa mar walba marka inaad naftaada baadho ood is ilaaliso ood is dhowrto ood is saxdo ood is miisaanto ood munaafiqnimo ka baqdo waa laga maarmaan seebaynaan uga baqaynin
nebi maxamed sal alla alay wasalam ardadiisii iyo saxaabadiisii ayaa munaafiqnimada ka baqi jiray. annaga xaggeen joognaa marka? bal saxaabada nebiga raggii ugu waaweynaa ee ugu qiimo badnaa ee ugu iimaan cuslaa ayaa munaafiqnimada ka baqi jiray.